wacan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono miski jaamac aadan oo ka mid ahayd goobjooge caawa ku sugnaa halkii lagu afduubanayay Habboon Shiine. miski ku soo dhawow Bidhaan Media, bal sidee wax u dhaceen faahfaahin kooban naga sii. horta marka hore Bidhaan Media waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaal waxay wax u dhaceen caawa 10kii fiidnimo maray ahayd ayaa waxa ii timi inanta Habboon aan ilmaadeernahay baa guriga igu timi inaan Fadix Xamar la yiraahdo maadaama ay markay saa igu soo galeen aan cabaar joogno aan casheynay cashada faraasa wala baxnay hal mar ayaa waxa noo soo galay 3 nin oo dhar cad ah. Haya 3 nin dhar cad markay noo soo galeen oo telefoonadan ciidanka wata oo dadkeena dheer leh ayaa mid kamid wuxuu yiri meeday Habboon ayaa waxay tiri waa ikan kadib markii waa ikan ay tiri waa ikantii ay kelmadda gabadha tiri ayaa waxa soo dareeray ciidan aan ku qiyaasay ma qiyaasi karo ciidan aad moodaysid inay qabaan sidii loo soo diray oo kale gacan ku dhiigla camal inay qabanayaan. marka qolkaan ku jiray anigu mul baan ahay ilmaheegan qolka iskaga haystay hablahaas kala sheekaysanaynay marka nimankaasi ciidan bay ahaayeen afku u duuban yahay marka waxay dhaheen waxay ku xijiyeen kelmadda waxay dhaheen keen labadaada moobil furaha gurigaaga furaha gaariga. Okay waa yahay waxaad ka dhawaajisay inay ciidan ahaayeen madrees bay wateen mise ciidanka dhar cad ka caadiga ah bay ahaayeen oo bal faahfaahin nasi way isku jireen laakiin afduubka u badnaa afka qaar baa afduubnaa waxaan ku niri war anagu sharciga kama weynin waxa jira noo sheega maxaad ahaydeen waxay dhaheen waxaan nahay sirdoon maxaad ku aqoonsanayna edikaariye la soo bixin walaw aanan sii dheehan oo dad edikaariye sii dheehan yaanan ahayn oo waxaan ay naga soo duldhaceen. waa yahay miski waad maasan tahay xilliga ay gabadhu ay labada gabdhood ku yimaadeen iyo xilliga ciidanku ku yimaadeen maxaa u dhaxeeyay muddo 20 daqiiqo waa yahay wax shaki oo iyadu ay qabtay in la daba joogo iyo in waxyaabo kale jireen ma jiraan oo iska wareysateen maya gabadha wax shakiya oo iyada ku jira iyo wax dhibaato ay waday iyo wax aan ku aragnay midna ma jirin. wax baaritaan ma ku sameeyeen arintaas walaal aad baan u argagaxay wax aan weliga arag baa igu dhacay ciidan baa ii soo daatay baabuur wata rag banaanka jooga xitaa waa laayeen annagii agteena mariyeen maxay sheegeen gabadhan gacanteeda mid baa ku dhigay ka fujiyaan isiri amar baa gacantana la wada saaray walaw aan hadda dad aan garanayn hadda nimankii aan garanayn wajiyadoodii gabadhii hadda cid aan la hadlay ma jirto familka cid aan la hadlay ma jirto waan argagaxay waxaan wacay oo kaliya odagayga hadaan wacayna wuxuu igu yiri maxay ahaayeen nimanku sidii u jireen baan u sheegay wana ku maqan yahay hadda. waa yahay markay idin yimaadeen iyada wax jirdila ma u geysteen mise si caadi ah u kaxeeyeen maya markii telefoonka ay damceen inay qaataan ayay ku tabar waxay sheegay maxaad ahaydeen mid baa nabar ku dhuftay ka qabaday aan isiri adigu wayna joogeeyeen. waa yahay wax tuhuna oo iyada lagu daba socdayna waxaad leedahay ma jiraan walaal haba yaraatay ma jirto gabadhaas wax tuhuna iyo wax dhibaato geysatay iyo wax lagu xamanayay iyo wax haba yaraatay ma jiraan. waan wada joognaa waa asxaab baan nahay isu dhow maxay sheegay kule anigu waxba kuma arag gabadhaan wax aan ku arkay ma jirto. maxaa loo aanaynayaa baas leedahay kule gabadhan nimanka nin kamid ah ayaa wuxuu nagu yiri markaan ku war gabadhan maxaa ku haysataan Puntland bay ka timi nagu dhaheen. waa yahay dad badan baa ku dhageysanaya wax inta dheeraada oo faahfaahin ku darayso ma jiraan walaal ma jirto wax horena ma ogeyn arintan kadiskaas ay ku dhacday weerarka yar ee kooban baa nagu dhacay haddana gabadha waxa ku maqan odagayga cid kale aan la hadlin ma jirto meel ay geeyeen ma garanayo nimankuna sirdoon bay sheegteen sirdoon aanu meel degan yahay xitaa ma arag. taasi waxay ahayd miski jaamac aadan oo goobjoog u ahayd falkii xalay magaalada Hargeysa ka dhacay oo runtii ay ku afduubteen ciidamada Somaliland sida ay dhawaajisay miski jaamac aadan. miski aad baad u mahadsan tahay wixii dambe waan kula soo xiriirinaa hadii Allah ka dhigo insha Allah bidmillah.